wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka warbaahinta xulashada warka qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah ciidamo loo diyaarinaya inay xilka ka tuuraan madaxweyne Farmaajo oo lagu ururinaya qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe tirada ciidankaas iyo cidda ka dambaysa ururintooda ayaa warka ku daawan doontaan Axmed Madoobe oo sheegay inuu layn doono dadku heyba madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddii aan la fulinin qodobo dhowr ah oo isaga doonayo Somaliland oo wacad ku martay in haddii ay Puntland daandaansiga ka deyn weyso ay la wareegayso magaalada Garowe ee caasimada maamulka Puntland qarax aad u weyn oo ka dhacay maanta magaalada Muqdisho beesha uu ka soo jeeday ra'iisul wasaare Khayre oo arrin la yaab leh kala kulantay odayaasha dhaqanka beelaha Hawiye qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka warbaahinta xulashada wararka intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobada warka aan idin hayna maanta haatanna ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan ciidamo aad u tiro badan loona diyaarinaya inay xilka ka tuuraan madaxweyne Farmaajo ayaa lagu ururinayaa qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe ciidankani oo lagu qiyaasayo in ka badan 3,000 ayaa la filayaa in intaasi ay ka badan karaan bilaha soo socda saraakiil ka tirsan ciidankani ayaa sheegay in ujeedkoodu uu yahay inay ka hortagaan muddo kororsi laga baqayo inuu sameeyo madaxweyne Farmaajo waxayna sheegeen in arrintani ay ku kaliftay kadib markii mishaaradkoodii aysan qaadan dhowr bil taasna ay ku kaliftay inay ka soo horjeestaan dawladda Soomaaliya dhanka kale waxa la sheegay inay jiraan siyaasiyiin mucaarada iyo qabaa'il aan ku qanacsanayn sida ay u shaqeynayso dawladda madaxweyne Farmaajo inay arrintani dabada ka riixayaan dhanka kale madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa wacad ku maray inuu qaadi doono tallaabo aad u xanuujisa madaxweyne Farmaajo haddii uusan faraha kala bixin arrimaha Jubbaland Axmed Madoobe oo cabsi aad u badan ka qaba in loo adeegsado ciidanka Itoobiya oo dhawaan la wareegay garoonka Kismaayo si ay u soo qabtaan isaga ayaa sheegay inuu layn doono dad badan oo ku heyba madaxweyne Farmaajo inta aanan isaga la qaban ka hor wuxuuna uga digay madaxweyne Farmaajo inuu horseedo dhimashada dadkiisa si aysan taasi u dhicinna uu u daayay Axmed Madoobe danaha uu ka leeyahay Jubbaland warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay kulamo isdaba joog ah qaateen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beelaha Hawiye iyo beesha Murunsade ee uu ka soo jeeday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre kulamadani oo in muddo ah socday ayaa la sheegay in la isku afgaran waayay waxaana la hordhigay beesha Murunsade in wax ay ka qabtaan sida uu u dhaqmayo Xasan Cali Khayre oo ay ku eedeeyeen odayaasha Hawiye inuu ku tumanayo xuquuqda beesha Hawiye ee uu kursiga ku matalo odayaasha Hawiye ayaa beesha Murunsade u sheegay in haddii arrinkan beesha ay wax ka qaban weyso ay la kulmi doonto cawaaqib xumo kaga imaata beelaha Hawiye isla markaana go'aan rasmi ah ay ka qaadan doonaan dhanka kale ciidamo kala tirsan Somaliland iyo Puntland ayaa hadda isku hor fadhiya qaybo ka mid ah gobolka Sanaag waxaana laga cabsi qabaa in dagaal uu ka qarxo halkaasi Somaliland ayaa sheegtay in haddii Puntland ay joojin weyso daandaansi ay sheegtay inay ku wado weerar ay ku qaadi doonto magaalada Garowe ee caasimada Puntland oo ay sheegtay ciidamadeeda haatanba inay ku sugan yihiin meel u dhow Somaliland ayaa sheegtay in Puntland ay wado daandaansi isla markaana deegaano ka tirsan maamulka Somaliland uu ku sugan yahay wasiirka waxbarashada Puntland kaasi oo la sheegay inuu kormeerayo imtixaanada Puntland oo ka furmay deegaano ka mid ah deegaanada ay isku haystaan Puntland iyo Somaliland wixii warar ay ku soo kordhay iyadana dib ayaan idin kala soo socodsiin doonaa intaasi ayaan maanta ku soo gabagabeynaya wararkii warbaahinta xulashada wararka oo aad ku daawateen qodobo xiiso badan haddii aad nagu cusub tahay si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya oo aan idin soo xulnay kuwoodii ugu door karoona ku soo biir channelkeena xulashada warka oo ku xirnow markasta mahadsanid